السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رئيس وحامهات اسكال الله سبحانه وتعالى ومركلي برامجيدين امتحانها عافمادك oo ay si wada jir idin ku soo gudbiyaan anigoo ah Dr. Cabdilatiif oo ku magac dheer Dr. Jawhari iyo anigoo ah Dr. Raysa Anfac. haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato YouTube channelkeena caafimaadsan fadlan subscribe, like, share. Like-tiina waxay nagu caawinaysaa inaan annagana dhiirigelin noo noqoto inta qof muuqaalkeena uu qanciyay aan arkayna. barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa laba cibaan oo aad muhiim u ah. cibaanka ugu horeeya oo aan aniga soo jeedin doono oo ah dhalmo la'aanta ku timaada ragga iyo Dr. Raysa Anfac oo soo jeedin doonta kansarka maqaarka ku dhaca insha Allah. inaad share gareysaan muuqaalada waxay inoo tahay dhiirigelin. Like-tana waxayna tusaysaa jaceylkeena. aad u mahadsan tihiin muuqaalka asxaabtiina la wadaaga daawasho wacan. maanta waxaan ka hadlaynaa dhalmo la'aanta ragga. dhalmo la'aanta ragga ku timaada waxaa la dhihi karaa marka laba qof oo isqaba muddo sanad ah iyagoo aan isticmaalin wax ka hortag ah laba mar ilaa iyo 3 jeerna isbuucii sameeya jamaac wax ilmana aan weli isku dhalin muddadaasi sanadka ah ayaa waxaa la dhihi karaa dhalmo la'aan. caafimaadka wuxuu u fiiriyaa da'da oo qofka haddii ninka rag haddii uu yahay qof jira 45 sano iyo wixii ka weyn dhalmo la'aanta sanad way ka badan kartaa oo ilaa 2 sano ayay gaari kartaa. sababtan waxay tahay waxaa hoos u dhac ku imaanayo spermska ninka ragga ayaa hoos u dhac ku imaanayo. laakiin qofka haddii uu yahay nin dhalinyaro ah xaaskiisiina ay ku jirto xilligii dhalmada iyo taranka ay ku jirto 2 bil 4 bil ilaa 5 bil ugu horeyso uur way yeelan kartaa. laakiin haddii qofka uu yahay qof da ah yaanan la dhihin maxaad wax u dhali weysay sababtoo ah waxaa hoos u dhac ku imaanaya spermski oo uur hore lagama yeelanayo. waa maxay calaamadaha lagu garto dhalmo la'aanta ku timaada ragga? calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah kow in rabitaankii iyo dareenkii ninka ragga ah in uu yaraado xilliga galmada, in uu isku arko xanuun dhanka qooraha ah, in lagu arko barar xubinta taranka xilligaasi idana sidoo kale waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto dhalmo la'aanta ku timaada ragga. in barar lagu arko naasaha idana sidoo kale waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto dhalmo la'aanta ragga. ragga caadiyan waxaa lagu yaqaanaa timo fara badan oo kasoo baxa qaybo badan oo jirka ka mid ah. timihii oo yaraada ama la waaya idana sidoo kale waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto dhalmo la'aanta ku timaada ragga. haddii calaamadahani qaar ka mid ah ama gebi ahaan aad isku aragtid waxaad ogaanaysaa in aad kusii socoto marxaladii dhalmo la'aanta. waa maxay waxyaabaha sababa dhalmo la'aanta? waxyaabaha sababa dhalmo la'aanta waxaan u qaybinaynaa 3 qayb. waxyaabo ka yimaada cudurro oo cudurro qofka ku dhacay oo toos u sababaya dhalmo la'aanta. waxyaabo qofka deegaanka iyo meesha uu ku nool yahay ka dhasha, iyo waxyaabo ka yimaada lifestyle-ka iyo qofka noloshiisa caadi ahaan. haddaan ku bilaabno cudurrada keeni kara dhalmo la'aanta ku timaada ragga waxaa ka mid ah kow infections, caabuqyada aan la daaweynin ee la arko xilliga galmada. waayo caabuqa waxaa laga yaabaa inuu xiro tubooyinka sidaasna qofkii uu ku keeno in uu dhali waayo. waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano varicocele. varicocele waxa waaye waa marka tubada qaada shahwada gasho testiska ay xiranto taana ay keento in shahwadii inay soo bixi weydo kadibna qofkii ay ku sababto in uu wax dhali waayo. waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano undescending testis. undescending testis waxaa la dhahaa markii xaniihii ay soo degi waayaan. waana wax muuqaal ahaan ama qofka haddii visitor oo la visitaynayo oo physically loo arki karo. waxaana marar qaar laga yaabaa hal xani inay kor jirto midna hoos ay jirto. waxaasoo dhan waxa waaye waxay sababi karaan ninka raggii ama ay ku keeni karaan in uu dhali waayo ama dhalmo la'aanta ragga ayay sababaan. waxaa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaano retrograde ejaculation. retrograde ejaculation waxa waaye inta jamaaca lagu jiro ama ay socoto waxaa laga rabaa in shahwadii inay soo raacdo xubintii taranka. laakiin haddii ay dhacdo mararka qaar in shahwadii inay soo bixi weyso ama haddii shahwadii ay dib u laabato oo kale waxaa laga yaabaa in ninka raggii inuu shahwadii ka faa'iidaysan waayo kadibna taa ay ku keento in dhalmo la'aan inay ku timaado. waxyaabaha kale ee sababi karo dhalmo la'aanta ragga waxaa ka mid ah in daawooyinka badanaba soomaalida aadkay u isticmaalaan oo loo yaqaano anti pain iyo anti allergic medications oo daawooyinka loo isticmaalo xanuun baabi'iyaasha iyo xasaasiyadda.
qaar badan oo kamid ah waxay dilaan spermiska ay dilaan waxayna hoos u dhigaan tayadii spermiska ay hoos u dhigaan sidaas laajligeed ninka ragga waxay ku keeni karaan dhalmo la-aan ayay ku sababi karaan waxyaabaha kale ee keeni kara dhalmo la-aanta ragga waxaa kamid ah waxa loo yaqaano chromosomal abnormality. Chromosomal abnormality waxa waaye caadiyan waxaan ognahay maleska waxay ka kooban yihiin x y, femalekana waxay ka kooban yihiin x x. mararka qaar waxaa dhacda marka ninka inuu yeesho x inuu yeesho ama uu soo baxo qof ama ninka inuu u ekaado oo kale dumar oo kale taana ay ku keento in ninkii ragga inuu dhali waayo badanaana waxa waaye waa xanuun qofka uu ku dhasho oo aanan la daaweyn karin. dhalmo la-aanta ragga sidee looga hortagi karaa? dhalmo la-aanta ragga waxaa looga hortagi karaa kow in ninka ragga inuu iska ilaaliyo ama uu joojiyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya sida qaadka, sigaarka iyo tubaakada oo saameyn badan ku leh dhalida iyo taranka ragga. waxaa kaloo kamid ah ragga inay xiirta iska yareeyaan oo iska dejiyaan. badanaaba ragga Soomaalida aad ay u cayilan yihiin, calool badanna way leeyihiin. ninka ragga haddii uu cayilan yahay waxaa laga yaabaa sida wax loogu talagalay inuu wax u sameyn waayo taana ay keento in ninka ragga inuu dhali waayo. waxyaabaha kale looga hortagi karo waxaa kamid ah in ninka ragga in labada qof isqaba inay jamaac far badan ay sameeyaan. ma ahan in habeen walbaba iyo maalin walbaba in la sameynayo, laakiin waxaa jirta xilli fursad in ilmo la dhalo ay badan tahay oo ay mudan tahay in laga faa'iideysto oo ah markii gabadha ay caadada ka qabaysato khaasatan xilliga ugxaanta la soo daayo oo ah maalinta 14aad 15 16 17 ilaa 18 oo ah xilliga ugxaanta diyaar ay tahay, bacrintana ay mudan tahay in laga faa'iideysto. in xilligaasi jamaac la sameeyo ay aad u qurux badan, waana xilliga caruur la raadiyo. inkastoo in ilmo la helan ay tahay hadiyad alla subxaanahu wa tacaala uu bixiyo, laakiin dadaalkan waa shay loo baahan yahay. sidoo kale waxyaabaha loogu hortagi karo dhalmo la-aanta ragga ku timaada waxaa kamid ah in liska yareeyo stresska. waayo stresska wuxuu dilaa spermiska ama minida ayuu dilaa. sidaas laajligeed stresska oo la yareeyo waxay kamid tahay waxyaabaha qofka oo ugu hortagi karo. waxyaabaha kale ee loogu hortagi karo waxaa kamid ah in ninka ragga inuu sameeyo exercise badan 3 jeer ilaa 4 jeer in isbuuci inuu sameeyo. waayo exercise-ka wuxuu kor u qaadaa spermiska taya ahaan. wuxuu kaloo exercise-ka uu xoojiyaa dhammaan murqaha ka qayb qaata habdhiska taranka. sidaas laajligeed marka exercise-ka wuxuu muhiim lafdhabar u yahay ninka ragga quwad ahaan iyo dhan walbaba. sidoo kale waxyaabaha loogu hortagi karo waxaa kamid ah in liska joojiyo isticmaalka cremiska oo badanaa ragga ay u isticmaalaan wax loo yaqaano lubrication ama ay aaminsan yihiin in xanuunka lagu yareeyo ama sidoo kale ay dhahaan xubintii ayaa lagu weyneeyaa. waayo cremiskaasi dhammaan daawooyinkaasi waxay hoos u dhigaan tayada spermiska, waxayna qofka ku keeni karaan dhalmo la-aan ama way ka qayb qaadan karaan caadi ahaan. sidaas laajligeed marka in iyagana sidoo kale in laiska dhaafo waxay qayb weyn ka qaadanaysaa dhalmo la-aanta ragga in laga hortago. haddii dhammaan waxyaabahan o dhan waxyaabo la sameyn karo oo la fulin karo marka insha allah waxa waaye waxaan idinku talin lahaa kan dhaktar ahaan inaad ku dadaashaan waxyaabahan o dhan oo aad si sax u sameysaan. waayo waxaa kaloo meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn in runtii alla subxaanahu wa tacaala iidan sidoo kale in la weydiisto caruurta. waayo waa hadiyad alla subxaanahu wa tacaala uu bixiyo. marka insha allah haddii muuqaalka aad ka faa'iideysatay share garay, la wadaag asxaabtaada, youtube-keena subscribe saar si aad ula socoto cashirada taxanaha aan idiin soo wado aniga iyo Dr. Sanfa. aadaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.